Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kusoo dhawaada Abna Official. Inshallah muuqaalkan waxaan kaga sheekeyn doonaa soo ifbaxa bangiyada islaamiga. Muuqaalka waxaan u kala qaadan doonaa laba qaybood. Qaybta koowaad oo ah taariikhda soo ifbaxa bangiyada islaamiga iyo qaybta labaad oo ah 10 marxaladood oo lagu aasaaso bangi islaami. Qaybta koowaad soo ifbaxa bangiyada islaamiga ah. Bangiyada islaamiga ah waxaa loo tixgeliyaa waayo aragnimada ugu dambeysay ee dunida islaamka, waxayna ku timid jawaab u ah baahida degdega ah ee loo qabo hay'adaha bangiyada ee daboola baahida muslimiinta, isla mar ahaantan u hoggaansamaan qodobada sharciga islaamka, kana fog macaamil macaashka bangiyada dhaqameed ee hadafkooda koowaad ahaa welina ay tahay in la gaaro faa'iido halkii laga heli lahaa maalgashi iyo horumar dhaqaale. Taariikhda soo ifbaxa hay'adaha maalgelinta islaamka sida ku xusan daraasadaha qaar waxay dib ugu laabanaysaa sanadkii 1940kii dalka Malaysia, halkaas ay ka aasaaseen lacag keyd ah oo dulsaar aan lahayn. Sanadkii 1950kii fikradda ah in la qaato qaacidooyinka maalgelinta ee u hoggaansamaya qodobada shareecada islaamka ayaa laga aasaasay dalka Pakistan. Laakiin isku dayga halista ah ee xilligan casriga ah ee lagu aasaasayo bangiyo bixiya adeegyo bangi iyo ganacsi iyadoo la raacayo qodobada sharciga islaamka waxay bilaabmeen 1963 iyadoo loo marayo waayo aragnimada bangiyada keydka maxalliga ah ee ka soo muuqday dalka Egypt, gaar ahaan gobolka Dagalia. Bangigaas uu aasaasay Dr. Ahmed Abdulaziz Al-Najjar. Bangiyada keydka ee maxalligu waxay ku tiirsanaadeen shaqadooda iyagoo ku saleynaya ururinta keydka yar ee beeraleyda yaryar oo dib ugu shaqaaleynayaan iyagoo ku saleynaya ka qaybgal ka baxsan heerka dulsaarka, hala qaato ama hala dalbado. Khibradani inkastoo ay gaabnayd oo ahayd ilaa 4 sano, haddana waa lagu guuleystay, taasi oo jirtay tirada dagaalka ay gaadhay 59,000 muddada 3 sano ah oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waayo aragnimada rajo gelinta ah ma sii noolaan arrimo siyaasadeed iyo maamul awood. Pakistan waxay isla waqtigaasi ogeyd waayo aragnimo kale oo ay ka jirtay gacanta Sheikh Ahmed Irshaad oo taageero ka helay boqorka Sacuudiga ee Faisal iyo Sheikh Amin Al Hussein. Tijaabadani waxay qaadatay qaab kale iyadoo la isku dayayo in loo beddelo bangiyada dhaqameed bangiyada islaami ah ee aan la macaamilin dulsaarka, iyadoo la ilaalinayo farsamooyinka ka jira bangiyadaas. Laakiin isku daygani wuxuu la kulmay masiirkii kii ka horreeyay maadaama uusan sii socon in ka badan dhowr bilood. Sanadkii 1970kii, wufuuddii Masar iyo Pakistan labaduba waxay gudbiyeen soo jeedin ah in la sameeyo bangi islaami oo caalami ah ama federaal caalami ah oo bangiyada islaam ah kaasoo ku shaqeeya shareecada islaamka. Intii lagu guda jiray shirkii labaad ee wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada islaamka oo lagu qabtay magaalada Karachi ee dalka Pakistan, mashruucaasna waxaa lagu soo bandhigay warbixin qeexaysa baahida loo qabo in la horumariyo nidaam islaami ah oo bedela nidaamka ribada. Sanadkii 1971 waxaa la aasaasay bangiga loo yaqaan Nasir oo bilaabay howlihiisii bangiga 1972 oo sharcigiisii aasaaska bangigaas ayaa dhigayay in uusan la macaamilin dulsaarka. Khibradani ayaa soo jeedisay dareen weyn, taas oo ka dhigtay in lagu daro ajandada shirkii wasiiradii arrimaha dibadda ee dalalka islaamka ee 1972 lagu qabtay magaalada Jidda, kaas oo lagu baaray suurtagalnimada in la sameeyo bangiyo islaami oo maxalli ah iyo bangiyo islaami oo caalami ah. Sanadkii 1973, kulan ay wasiirada maaliyadda islaamka ku yeesheen magaalada Jidda, waxaa la soo jeediyay fikradda in la sameeyo bangiyo islaami oo bixin doona adeegyo bangi oo isku dhafan. Kulankan ayaa sidoo kale waxaa si faahfaahsan lagu hadlay aragtida iyo dhaqan ahaan qaab dhismeedka bangiyada islaamka iyo hay'adaha maaliyadeed.
Fikirkani waa la soo dhaweeyay waana la aqbalay maadaama kulanku ku dhammaaday, waxaana laga maarmaan ah in si ficil ah lagu dhaqangeliyo. Sanadkii 1975 markii uu amiirkii Dubai uu soo saaray amar lagu aasaasayo Bangi Islaami ee Dubai ama Dubai Islamic Bank, kaas oo lagu kala saarayay bixinta adeegyo bangi oo isku dhafan ah. Isla sanadkaas waxaa la aasaasay Bangiga Horumarinta Islaamka oo ah hay'ad caalami oo lagu maalgeliyo horumarka oo ay ka wada qaybgalayaan dhammaan wadamada Islaamka. Intaa kadib, aasaasidda bangiyada Islaamiga ah ee wadamo kala duwan ayaa sii socday, iyadoo gacankii bangiyada Islaamiga ah ay markhaati ka ahaayeen koror xawli ah oo ku socday 4 sano ee la soo dhaafay. Kadib markii tirada bangiyada Islaamka ay 3 ahaayeen sanadkii 1975, tiradaasi waxay u guurtay ilaa 520 hay'adood iyo bangiyo Islaami ah ee daafaha adduunka dhammaadkii sanadkii 2012 ee loo qaybiyay. In ka badan 60 waddan oo rajo ka qaba inay gaaraan 900 hay'adood iyo bangiyo sanadkii 2015 ayaa gaaray. Badankoodii waxay ku urursan yihiin wadamada Carabta, gaar ahaan wadamada Khaliijka. Nidaamka lagu aasaasayo bangiyada Islaamiga ah wuxuu maraa dhowr marxaladood oo macquul ah. Haddaba halkani waxaan kusoo gudbinaynaa qaybteena labaad oo ahayd marxaladaha lagu aasaasayo bangi Islaami. 10 marxaladood ee asaasiga ahna ma ahan heerar caadi ah, laakiin waa marxalado ay tahay in la qabto iyo haddii ay suurtagal tahay in midkood la dejiyo ama la isku milo. Insha Allah muuqaalka xiga waxaan kusoo gudbin doonaa 10 marxaladood ee bangiyada. La soco qaybta labaad ee soo ifbaxa bangiyada Islaamiga. Insha Allah. Fadlan channelka ku cusub tahay subscribe star.